Trade-keeni live-ka maanta oo Khamiis 4 September si live trade-ka ugu jirnaa sida arkaysaan gold. Trade-kan asalkiisa waa 33 pips oo asalka uu nagu yaro weynaa meesha ka qaadanaa xoogaa meel sare anigoo mashquulsanaa awgeeda. sidoo kale TB-geena waa 68 pip waa 2RR kaas trade-ka. sida arkaysaan already hadda trade-kan TB1 buu noo gaaray alxamdulillah. marka sida caadiga trade-yada u manage gareyno bear share waa profit ka xiranayna isla maraantaasina trade-ka waxaa ku link gareynaynaa break-even. haddii aan isla fiirino warbixinada soo baxaya maanta oo Khamiis Surface PMI-gana ugu weyn. sidoo kale tomorrow bay dabcan inta badan ay jiraan warbixinada asbuucan ugu waaweyn sida NFP iyo kuwa la midka sida arkaysaan. numberkan uu ku soo baxaya marka maybe numberkan inuu waxa weeye numberka inuu ku soo baxo maybe inuu numberka yar ka soo baxo. so that's why news-ku risk u yahay inay trade gareysid ardadana aan ugu la taliyo inay totally aysan wax news trade gareynin. after news leena wixii trade marka ay qaadatid ama news-ka koor trade-kana sida arkaysaan gold alxamdulillah ugu dambeyn waxa weeye suuqa movement fiican buu sameeyay volume fiican baa ku jiray area-dani. waana waqtiga ay tahay inaan ka faa'iideysano istaraatiijiyadana sababta ay strong u yihiin. markasta anaga sadabkan waa simple waxaana fiirinaa xilliga markaas suuqa volume ka fiican noo sameeyo si trade-ka isla markii aan ugu kala baxno target-keena uu nagu gaaro alxamdulillah ugu dambeyn sa aragtaan 68 pip trade-ka full target baa helnay. live trading-keena maanta intaas ku eegay nabadgelyo.